السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا دغستيال Somali Pacific Media maanta waa maalin Jimco ah waxaan soo jeedin doonaa hadii Ilaahay idmo khudbo runtii aad u qiimo badan oo uu jeediyay Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo taabanaysa waaqaca dhabta ah oo Soomaalida ku jirto marka khudbada jamcuhu marka ay taabanayso waaqaca shacabka marka la hadlayo falcelin bay leedahay falcelin ayay yeelataa dad misaaka jooga ayaa arrinta la yaaba oo dhibsada sababta waxyaalaha gacmaha kula jireen oo markaas socday in laga wacyigeliyo u baahanaa baa la taabanaya khudbooyinka aad iyo aad u qiimaha badan oo Soomaali maanta u baahan tahay runtii waxa ugu horeeya kelimadan uu maanta ka jeediyay jamcihiisii hore jamcihii ka horeeyay masaajidka Nairobi ka jeediyay soo khudba akhrinaya Sheekh Allah Ilaahay karaameeye Sheekh Maxamed Cabdi Umal wuxuu ka sheekeynaya marka qabyaaladda iyo jifaysiga iyo iska taageerka qofka Soomaaliga ah inuu dantiisa garto oo aadan u noolaan qof kale oo qofkaas wuxuu doonaa ahaado ama madaxweyne ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado ama oday dhaqameed adiga ku matalo jifadaada matalaha ahaado ama doonka ha ahaadee inaadan qofna uusan kaba kuu gelin shaarna kuu tilmada xaagan oo ku kaadshin aad iska daba gelin sababta Ilaahay baad leedahay risaala lagu soo diray su'aalo lagu weydiin doonaa ayagu intay ku yimaadaan kuma badbaadinayaan jaran kama dhigan kartid aakhiro adduunka markaad joogto ka fakar marka khudbada marka waa khudbad qiimo badan oo aad iyo aad runtii u qiimo badan oo aan aad u jeclaaday maanta marka waa maalin Jimco ah magaalada Melbourne ayaan maanta masaajidka Soomaalida North Melbourne ayaan aaday ku tukaday markaan sii socday anoo khudbadan ii diyaarsan tahay oo rabana khudbadan ka hadlo oo Soomaali la wadaago oo dadka khudbada masaajidka ka akhriya booyinka inay kaga sheekeeyaan dadka ay khudbada u akhrinayaan waaqaca markaas waxa jira oo aysan soo qaadan kutubtii la qoray xilliga Cabaasiyiinta iyo Umayyiinta la qoray ay soo qaadan oo kitaab sida u kala furtaan aysan ka sheekaynin wax la soo dhaafay fiqul waaqac la soo dhaafay xilli hore la soo dhaafay aysan dadku u sheegin dadku iska arruman iska fadhiin ay uga sheekeeyaan cilladaha markaas jira maanta marka masaajidka markaan ku tukaday runtii anigoo isleh laba jamco la soo dhaafay baan ku tukaday jamcihii hore nin Ethiopian iyo maqan Eritrean wuxuu yahay oo faatixadu hataa ku adag tahay ayaa khudbada meesha ka akhriyay waxbuu sheegay aan ku saabsanayn waxyaalaha hadda looga baahan yahay magaalada Melbourne iyo dhalinyarada Soomaaliyeed sababta luqadda Soomaaliga ma soo aqoonin wadan kale oo ahaayo ama Eritrea ama xabashkol nin xabasha oo ahaayo ama Eritrea ama maxaraas kala oo laakiin muslim ama Oromo ah oo laakiin nin muslim oo ahaa oo markii runta la sheego ay faatixada hataa ku adag tahay jamcihii ka dambeeyay oo jamcahan maanta kii ka horeeyana nin Carab ah khudba fiican jeediyay oo aan dhageysanay maanta wiil dhalinyarada Soomaaliyeed baa khudbada ku qornaa wuxuu ka sheekeeyay wax loo baahan yahay in lagu baraarujiyo dadka Soomaaliyeed oo reer Melbourne reer Australia iyo dadka qarbiga degan inay ciyaalkooda ilaaliyaan inay naftooda ilaaliyaan inay xalaal doortaan xalaasha inay cunaan dhowr qodob buu ka hadlay qodobka ribada ayaa ku jiray inaadan ribo ku degdegan aadan qaadan ribo qaadan halka waxaa jira dad yiraahda sheekh waxaan maqli jiray beentay run leh beentay sheekh leh ama sheekh baan u leeyahay gurigooda waa la qaadan karaa haddaad dhibanta ciyaal badan leedahay gurigooda oo ribada waa la qaadan karaa waxyaalaha noocaas inaadan ku kadsoomin gaari baad soo qaadanaysaa inaadan gaari soo qaadanin oo aadan iska fiirinin waxa meeshaan ku qoran aadan dhihinin gaarigu ribo la'aan weeye marka interest free weeye gaariga nin marka wadamadan jooga oo baabuur gadahaya ama guri gadahaya ama oo kaa yeelahaya ribo la'aan wax kugu siinaya mantiqa bini'aadanka caqliga saxda xataa ogolayn wax sax marka maahan laakiin dad badan oo Soomaali ayaa ku kadsooma oo iyagoo raba inay gacmaha ka falaxashaan wuxuu leeyahay baabuur baa la qaadanaya 4 sanaad qaadan 5 sanaad ku dhamaynaysaa waa interest free weeye marka ninka uu tagto weydiistay war gaarigan interest saaran yahay ku leeyahay fixed interest saaran ku leeyahay haddaad maanta lacagta bixinaysid gaarigan waa 25,000 haddaad in 5 ama 6 years kabin aad ku bixinaysidna waa 30,000 weeye 30,000 ku gaaraya marka laakiin lacag kale ku fuulamayso waxa ku sii qoran meesha markaas haddii aad si fiican ugu socon weydo waxaan kala qornay aad kala dahdo lacagta payment-ga on time ku bixin weydid riba kugu bilaabanaysa marka wuxuu ka sheekeeyay marka waxyaalaha ka jira maanta magaalada Melbourne Australia iyo wadamada Canada Mareykanka iyo Yurub iyo dad Soomaalida ay aad iyo aad u isticmaalaan oo ribadu ka mid tahay oo ay ka mid tahay
shahaadada certificate-ka lagu siinayo oo inta waddanka nimanka meel furteen xalaasha ayaan banaynaa bay leeyihiin niman carabiya turkiya u badan iyo hindi iyo waxay leeyihiin waxaan bixinaa xalaal certificate lacag bay ku qaataan marka nin baa u imaanahaya kuuriyaan baa u imaanahaya vietnames baa u imaanahaya chines baa u imaanahaya wadamada aan caddaan caadi oo maqaada la imaanahaya waxay leeyihiin chickenka oo dhan waxaan ka soo qaadanaynaa warshad xalaala marka waxaadna siisaa certificate sanad buu lacag bixinahayaa derbigu ku dhafsanahayaa markaas wuxuu leeyahay marka waa xalaal restaurant meesha ku taala markaad google glisada kuus magaca ku soo baxaya hadhow markaad tagtid oo aad weydiiso dadka meesha ka shaqeeya ama KFC ha noqdo ama McDonald's ha noqdo ama magac dood ha yeelato marka hadhow u tagtid dadka meesha ka shaqeeya oo dadka honest ah oo runta sheegaya oo shaqaalaha weydiisa waxay ku leeyihiin meeshaan xalaal maaha waa side by side sababta doofaarka waa lagu shiilhayaa su saliidba markaas la isticmaalahaya mar saliidda isku darmanaysa qaadooyinka isku darmanahaya marka waa side by side nin waxaa jiri jiray saxaafada sankiilda Melbourne ku ahaan jiray oo muslim oo turki ahaa baan hadda ka horan nin Soomaali u tagnay habeen u tagnay waxaan niyow waxaad noo samaysaa kabaab intuu kabaabku noo samaynay waxaan weydiiyay waxaan ku yiri diwarso meeshu xalaal soo ma tihiis diwarno muslim aan hayb yiri meeshuna waa xalaal laakiin wuxuu yiri waa side by side dhinacaas brother wuxuu yiri dhinacaas oo dhan wuxuu yiri dadka muslimiinta ahayn baa iska leh dhinacaana dadka muslimiinta iyo saxanku dadka muslimiinta ahayn ayaa ku yiri doofaar iyo xaaraansi maxaa soo no de ayagu waaba gaalu yiri wax ka sala siin karaa marka adigu dhinacaas aad ka siin haya xalaasha waatana waa side by side dhinaca wixii ahna wuxuu yiri waa dadkaas kala loogu talagalay boogii iyo hilib xaaraan oo ka soo gatay meelaha raqiiska hilibka xalaalka iyo hilibka meelaha aan xalaalka lagu gadan wax badan raqiisan hilibka meelaha xalaasha aan hayn baa raqiisan marka meelahaas ka soo gurtay side by side buu bixiyay marka waa ninkii lagu yiri meesha waxa side by side bii laba is ag yaalaan dhinacana waa xalaal dhinacana waa xaaraan buu marka khudbada maanta misaalka North Melbourne iyaga ka jeediyay khudbo waxay ahayd taabanaysa dadka reer Melbourne ama Australia waxay ku jiraan cunnada ay maqaayadaha la iska cunahayo oo aan loo abadeeyin oo ayuu doofaarka yaallo shahaado weyn la fiirinayo baabuurta la soo qaadanayo guryaha la leeyahay sheekh baa yiri guriga waa la qaadan karaa waa dhow ciladaha iyo dhibaatooyinka ka soo baxay marka inaan lagu degdegin marka noocaas oo kale marka khudbada ay noqoto oo khudbada saa loogu jeediyo dadka oo markaas waaqica markaa haysta laga hadlo waxay yeelataa rad ficil bay yeelataa markaas dad baa soo boodahaya toosahay waxay leeyihiin maxay tahay sheekadan xasaa loo leeyahay maxay tahay waxaani xagga laga keenay waxaan u baahanahay cilmi waasic oo baahanahay qof cilmi waasic ka sheekeeyo oo meel kale wuxuu rabaa buugti in la akhriyo waxay rabaa in la akhriyo buugti wiinta in meesha laga akhriyo dadku waxay ku sugan yihiin aan laga sheekeynin waxay u baahan dadka Soomaalida marka in looga sheekeeyo waxyaalaha dhibaatooyinka haysta waliba reer Melbourne waxaan u baahanahay waxyaalaha xanuunka ah oo dadka reer Melbourne Australia haysta in laga sheekeeyo oo ay ka mid tahay qabyaaladda iyo tifaysiga dadka Soomaaliya ka soo qaxay oo wadamada Europe iyo Canada aaday Australia iyo meel kasta aaday caalamka xanuunkii ay la soo carareen bay wali qabaan wuxuu baahay marka khudbadu week kasta in khudbada lagu soo daro qabyaaladda iyo tifaysiga iyo xumaanteeda qabiilku wax dhiba ma lahan dadka Soomaaliyeed qabyaaladda laga wacyigeliyo u baahan yihiin qofka la iska taageerayo oo la iska xeersanayo in laga wacyigeliyo u baahan yihiin marka waxaan soo deynayaa marka khudbadii Sheekh Umal ayaan soo deynayaa dhageysi wacan waxaan kale ayadana soo deynayaa oo ku xigi doonta khudbada maanta laga akhriyay masaajidka North Melbourne xaafadda North Melbourne oo ayadana aan qayb ka soo gooyay runtiina khudbooyinkan labadan khudbo iyo kuwa lamidkaaba dadka masaajidku tukanaya waxay ka keeni karaan inay yara boodaan sababta xanuunkii haya baa laga sheekeynaya xanuunkii dadka markaa haya laga sheekeynaya marka kusoo dhawaada sheekh dantaada garo odayga kaaba qabiilka ka hadh qabyaaladda ka hadh madaxweynaha khariban iyo wasiirka khariban ka hadh wadaadka lunsan ka hadh jidka khaldan ka hadh xumaanta ka joogso dantaada garo caqligaaga ku noqo xaqa faham xaqa raac adiga rabbiga ayaan laydiin dhaxaynin rasuulkiisa xaggee maray baro kadibna cidna ha ugu aabayeelin cidnana ha ugu danaynin dantaada iyo maslaxadaada cidna ha ugu danaynin aakhiradaada iyo adduunkaaga adiga dantaada garo haddaad garan weydana maalin aan maanta ahayn baad nidaamoon doontaa war isweydiiya muxuu ku taray war adiga sacabka garaacaya
maalinba filin laguu shidayo maalinba riwaayad laguu jilayo maxaad faa'iiday billaahi calayka adduunyadaadiina waa burburtay dalkaagii waa burburay maslaxadaadii waa lumisay badahaad ku baaba'day karaamadaadii baa dhimatay waa dullowday wax alla waxaad adduun ku haysa ma jiro wixii halkaa ku dhigay aakharana meeshaasaad ku dambayn doonto bal isweydii maxaad faa'iiday bini aadamku wuu xisaabtamaa ribix iyo faa'iidadu isgarab dhigaa tillaabaduu qaadayo maxaa ka imaanayo u fiirsadaa maxaa ka dhashay buu miisaamaa kadibna maslaxadaadu xaggay ku jirtaa buu qaataa war sida xoolihii in lagu hobeeyo oo sida adduunyadii layska kaakaxaysto oo maslaxadaadii iyo dantaadii la burburiyo oo mid danaysta uu kugu shaqaysto oo maalinba riwaayad kuu shido oo maalinba filin kuu daaro adiguna aad sacabka garaacdo sacabka yaa waraaway caqligii waraaway garashadii waraaway diintii waraaway aakharadii waraaway adduunyadii waraaway maslaxadii war aaway bini aadamnimadii ilaahay kugu karaamay aaway markii sidii dameer oo kale inta hoggaanka lagu gashado lagu kaxaysanayo meeshii doona lagu geysanayo oo lagugu danaysanayo aaway caqligaagii iyo bini aadamnimadii aaway islaamnimadii aaway kitaabka ilaahay soo dejiyey aaway rasuulka sal alla alay wasalam yaadigiisa aaway haddaad yeeli weydo allahuma hal ballaqtu maanta aan maalin aan maanta ahayn ayaad farta ka dhaqaniini doontaa adigiyo madaxweynuhuna naarta wada geli doontaan adigiyo odayga qabiilkuna naarta isugu tegi doontaan adiga sheekha luusan iyo wixii aad khalad ku raacdaba naarta ku kulmi doontaan markaasaad is-eedi doontaan asagana wax tari mayso adna wax ku tari mayso meeshaasaa dambaysee aakharaad dambaysee war dantaada garo ninna ha la wadaagine maslaxadaada khaaskaa intaad ku dadaasho saad ku badbaadi lahayd adduunkaaga iyo aakhiradaada adoo keliga ka fikir marka waa khudbo runtii mufiid ah oo ka sheekaynaysa xaaladda dadka Soomaaliyeed ku sugan yihiin bay ka sheekaynaysaa maantay bay ka sheekaynaysaa waxaad kala ogaataa dad badan oo Soomaaliya waxaan maqlay leh khudbadu markii Carabi lagu akhriyo ayay qurux badan tahay oo nusuustu muuqanaysa oo wanaagsan tahay oo aad ku qancaysaa sax waa fiican tahay khudbada in Carabi lagu akhriyo waa sax wax fiican weeye laakiin waxaad ogaataa luqadda adigu u dhalatay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala luqad luqadana Ilaahay baa leh luqadda Soomaaliguna waa luqad fasaxa badan haddii marka qofku aqoon leeyahay sida Sheekh Umar oo kale hadda suu khudbo u jeedinayo waa u jeedaa khudbadaas uu akhrinayo oo jaalada ka soo jeediyay oo kaga sheekeynayo ciladaha Soomaaliya ka jiro xaqiiqada ka sheekeynayo luqad Soomaali ku hadlaya luqad qurux badan ku hadlaya luqad isaaran ku hadlaya luqad la fahmi karo khudbada macaan ka dhiga isku hadlaya aqoonta keenaysa marka qofku markuu aqoon diinta u leeyahay sida qofka codka qurxoon inuu quraanka yaqaan ay tusayso codka ma qurxin kartid haddaadan quraanka aqoon khudbada marka Soomaaliga ma qurxin kartid haddaadan Soomaaliga si kasoo u taqaanid haddaadan diinta aqoonin oo si fiican u aqoonin oo aadan haysanin cilmul waasic ma muujin kartid marka afka Soomaaliga si ugu macaan yahay diinta ma muujin kartid marka waa inaad fahantaa Ilaahay baa luqadaha dhan leh luqad kastana waxay u baahan tahay aqoon bay u baahan tahay luqad kastana waxa lagu jeedin karaa khudbada luqadda Carabi waa macaan tahay waa run laakiin dad badan waxaan maqlayaa luqadda marka Soomaali lagu akhriyo wax qaab daran haddii qof aan diinta waxba ka aqoonin af Soomaali kugu khudbeeyo oo khudbo kugu jeediyo de muxuu kuu sheegayaa habda meel buu ka ganacsiinaya sababta diinta ma yaqaan laakiin marka qofku diinta yaqaano khudbada hadda maanta halkaan shaqo ka jeedin baad garanaysaa waxaan sidoo kale in soo jeedinayaa khudbada maanta laga akhriyay jamcaha maanta ah masaajidka North Melbourne ee Soomaalidu ay leedahay ku yaal magaalada Melbourne asaguna yarka beesh khudba ka akhriyay runtii wuxuu ka sheekeeyay khudba aad u qiimo badan oo tusaysa waxa waaqica oo maanta halkaan yaala ribada la qaadanayo oo loo gabanayo guryaha la qaadanayo baabuurta loo gabanayo la leeyahay interest free weeye makhaayadaha doofaarka lagu gado oo xalaash inta lagu dhigsaday la leeyahay ciyaalkiisa ninku ciyaalkiisa xaas inta ka xasuu leeyahay ka noolaada leeyahay shahada ku taala oo hadda aad halkan ugu soo batay waagii hore wadamada North America waxay cuni jireen wax kasta oo ay gowracaan dadkan ehlu kitaabka waxay dhihi jireen kitaab weeye McDonald's-kooda iyo King Burger-radooda iyo wax alla waxay cuni jireen waxaan doofaar ahayn dambiga siin jireen Australia dadka jooga waxay ahaan jireen dad cusub meel xalaala waxaan ahayn lagama cuni jirin
hadda laakiin dhalinyarada halkan ku baratay ayaa 30 sano maraysa 30 jiro 35 jiro maraysa guri kasta marka iyo reer kasta ciyaalkoodii 25 iyo 5 iyo 20 iyo 30 gaareen intaasoo baakad baa Uber Eats kusoo keenaya oo laga keenay meelaha ummad ka sheekeynayay marka intaana kusoo koobaya khudbada maanta laga akhriyay North Melbourne ayaa idin soo deynaya oo runtii dadka Soomaalida maanta ku tukuday meeshaas ka keeni karta reaction inay keenaan radul ficil inay yiraahdaan khudbada noocan maxay ahayd sababtoo waxay rabaan in loo akhriyo looga sheekeeyo maalin kasta kitaab inta looga soo qoro ama laftigiisa loo kala bixiyo xaaladihii umawiyinta iyo ila la soo dhaafayo hadda maanta aan la joogin in loo akhriyo oo aysan xaaladka marka ay ku sugan yihiin iyo waxyaalaha dambiyada ay faraha kula jiraan aan la ilaajin oo laga hadlinin alxamdulillah wa kafa والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إخوة الكرام قد مغلي سيقول بدنا وحي كسر سنين إن لقد دالو حراشة هذين والله هاي ذاتيا عنطلع أفكر ديني سمكة أرجونا يزيد إلي عنطلع أمان إنه هو عنطلع حلال waxaad cabaysid markaa inay noqdaan wax xalaal sidoo kale income-ka aad samaynaysid oo aad carruurtaada ka quudinaysid oo aad ku cibaadaysanaysid inay noqdaan ama inuu noqdo income si xalaal ah kugu soo galay khudbadeena maanta intaas ayay xooga saaraysa sidaas daraaddeed walaalayaal waxaan ka hadli doonaa insha allah haddii intaa qofka laga waayo maxaa dhacay muxuu ilaahay noo sheegay muxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam noo sheegay ilaahay casa wajalla walaalayaal aayadii aan ku bilaabay wuxuu ku amrayaa dadka mu'miniinta dadka ma arkaysaa mu'miniinta ilahay wuxuu ku amrayaa ama bini aadamka guud ahaanba ilahay wuxuu leeyahay naskulu mima fi lardi xalaalan tayiban walaa tattabicu khutuwaati shaytaan ilahay wuxuu leeyahay dadow waxa aan dhulkaa dhignay inta xalaasha ka cuna xalaasha iyo xaaraanta markii la isu barbar dhigo xalaasha badan xaaraanta yar ilaahay wuxuu leeyahay wixii xaaraam ka fogaada wixii xalaala cun marka walaalayaal xalaasha marka waxay noqon kartaa ama waxaan ka dhigi karnaa saan sheegnayba waxaa markaas afka la gelinaya inuu noqdo wax xalaal ah maalmahan waxaa aad u soo batay walaalayaal waalidiinta inay ka aqbaleen carruurtooda maqaaxyadaha iskuulaadka lagu soo ammaanay ee ashyaada cuntada xaaraamta lagu gado inay ma arkaysaa carruurtooda ay ka fudiyaan walaalayaal maqaaxyo aan ognahay in shay xaaraana ama hilib doofaara lagu gado ayaa waxaa la dhihi certificate oo xalaal ay haystaan ama ma arkaysaa vegetarian aan ka iibsanaynaa annaga waxa xaaraamta iskuma taabano marka walaalayaal taas cudurdaar ma noqonayso shay xaaraama meel lagu gaday ama lagu keliyey cuntadii kale aad xalaasha moodayna inaysan xalaal noqon bay u badan tahay waayo way isgaarayaan marka carruurtiina cadaab ka badbaadiyuu leeyahay ilaahay xaaraam ha siiyina KFC-gan oo dadku inta badan ay galaan baa maalin galay ninkii ka shaqaynaya weydii wuxuu u dhahay xalaal ma aha waad arki kartaa certificate xalaal meel ku dhiga ama chickenka meel xalaal laga soo gataa in lagu dhaco laakiin isweydii hadday shay xaaraam meesha ay ku kariyaan aakhiradaada ka badbaadso carruurtaada badbaadi naftaada badbaadi ka fogow haddaad maaragta maqaaxida inay shay xaaraam ay dirayso walaalayaal aan ka fogaano sidaas daraaddeed waxaan cabaynana inuu noqdo wax xalaal ah oo ilaahay quraani ka yahay taas waa ilaahay xitaa ambiyada ayuu la hadlay wuxuu dhahay war dhulka waxa yaala xalaasha badani xalaasha hal culuga ilaahay casa wajal yaa ayuha annaasu yaa ayuha rusulu kuluu min atayibaati wacmaluu saalix ilaahay ambiyadiisa isagoo la hadlay wuxuu leeyahay waxa tayibaadka ee wanaagsan ee xalaasha cuna ambiyadaa lala hadlaya camal wanaagsanna sameeya marka walaalayaal carruurta aad dasheen oo la rabay inaad idinka hogaamisaan inay idin hogaamiyaan ha samaynina haddaad aragti qof carruurtiisa maqaaxyadahaas geynaya kala hadal mas-uuliyad baa kaa saaraaya
markaan ka soo tagno cuntadaasi xalaasha magaacidaha laga cuno walaalayaal qodobka labaad aan rabo inaan aad u taabto waa income la shaqaysana qofka muslimka ah inuusan gacan hoorsan shilin la siiyo uusan u fadhiisan shareecada islaamka fartay ilaahay baa faray laakiin haddana waxa income-ka aad ka samaynaysid inuu income-kaasi xalaal kuu noqdo laba dhinacba waa inaad ka fiirisaa wejiga koowaad aad ka fiirinaysid companiga aad la shaqaynaysid maxay sameeyaan businesskooda business xalaal ah ma yahay waa inaad kaa ka fiirisaa haddii businesska uusan xalaal ahayn oo product aan xalaal ahayn aad gelaysid ilaahay aan raali ka ahayn waa inaad ka gowractaa income-kii aad ka samaysan xaaraan buu noqonayaa carruurta aad ka quudisayna xaaraan baad ku quudisay taas waa business haddii businesska uu xalaal yahay wixii qofka aad ku heshiiseen waa inaad samaysaa agreement baad saxiixday terms baa ku qoran qodobaa ku qoran waxa waa inaad samayso waa inaad intaas samayso haddii aan ku dhaho 9 to 5 xafiiskan aad ii fadhinaysaa $250 a day baan ku beygaraynaya hadduu qofka ku dhaho xafiiskaasi ilaa fasax aad uga baxdid fasax aad qaadata maalin ku soo korodho oo qofkii ku shaqaaleeyey oo og yahay iyo qofkii ku beygaraynaya ay og yihiin laakiin inaad tahay 2 sac baa meesha fadhinaya haddaan baxan cid kale ay ogaanaysa ma jirta haddaan dhahdid ogow 2 sac baa xalaal ka ah ciidankaaga inta kale xalaal ma aha waayo qofkii ku aaminay baad khiyaanaysaa wixii terms qofka aad kula heshiisayna waa inaad deliver garaysaa haddii kale carruurtaadii xaaraan baad quudinaysaa sidaas aad isu fadwo adiga shaydaan baa qofku fadwoonaya dhowr meelna wax kaa soo geliyo wuxuu ku dhihi waa caadi waa la samayn karaa caadi maaha waxyaabaha ka baxsan weyne bani aadam aad tahay qofka la hadal u sheeg maanta inaan dhaqso baxaan u baahnahay ama maanta xilli horaan baxay den markaas isagay jirtaa inuu ku beygaraaya inuu maarkisa u kaa jaro marka walaalayaal nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiid jismi kasta oo xaaraan laga quudiyey naar baa u dambaysa u yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam marka shay yar aad cuntay cadaab ku geynaya walaala inaad iska dhaaftaa kaaga fudud soo maaha waxyaabaha xaaraamta keenaya waxaa ka mid a walaalayaal ribadaa ka mid ah heshiisyada aad wax ku qaadanaysaan iska fiiriya tenniskeed qodobo yaraa ku jira aan fahmi karin ama dadka kala warayso ha lagaa akriya haddaadan akrin karin haddii wax yaroo ribo meesha ku jira iska fogey gawaari maalmaha la qaadanaya la ii sheegay markaxaas aan la hadlay waxaa la igu dhahay qoladii aan ka qaadan lahaa oo la ii tilmaamay baa igu dhahay ribo way ku jirtaa ninki weliba wuxuu ii raaciyey mar kastoo qof ribo iga wareysto igu dhahay conversationkeena halkaasuu ku dhamaadaa buu yiri jawaabteedana waa haa inay ribo ku jirto nina iyadoo qoraala labadii ka bani aan la hadlay saasay gudhaan dadkiina waxay leeyihin ribo ma aha waa heshiis caadi ah intii adigu kula heshiiyaad bixinaysaa laakiin meesha tennis waxaa ku jira haddaad default samaysid in meesha interest la saaray culimadan waxay leeyihin marka haddaad contract noocaas oo kale aad saxiixdin xitaa haddaan default samaynin lacagtii ama shaygii ribo noqonaa ku qaadatay marka walaalayaal waxaa kaloo ka mid ah laaluushka qaad aragta wadamadeena iyo qaarada aan ka imaanayba xafiiskaa tagtaba intii la isku ogaamaanay in kale oo logatibaala saaran oo laaluusha qofkaa qaadanaya si hawsha lagugu fududay iyaduna waa xaaraan waxaa ka mid ah waxyaabaha tuuginimada lagu qaato walaalayaal marka waa wada garanayna waxaan u baahan nahay marka insha allah aan isu dardaarmayna walaalayaal inaan iska ilaalino waxyaabaha oo xaaraanta ah carruurteena inaanan ku quudin nafteenana inaanan siinin insha allah waxaan kusoo gabagabaynaya marka xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii safarka dheer galay ee timihiisii boorka fuulay ee isku dardarsameen rafaadsan musaafir ah la sheegay musaafirka ducadiisa inay mustajaabo tahay haddana nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yihi ninkaasa ilahay intuu gacanta kor ku taagay oo ilaahay la hadlay baa ducadii lagu sociyey waxna laga aqbalo buu yihi nabiga calayhi salaam maxaa keenayay marka rasuulka calayhi salaam wuxuu cunayay waa xaaraam wuxuu cabaaya xaaraam waaye dharkuu ku labisanya waa xaaraam sug ilaahay ducadiisa u aqbalaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam jawaabta waa maya marka wala haddaan inaan ducada ilaahay aqbalo
nolosha inay baraka gasho caruurta inuu ilaahay noo badbaadiyo xaasaska inuu ilaahay noo badbaadiyo u baahan tahay waa inaan xalaal ka quudinaa haddii xalaal laga quudin waayo badbaadada ku sugayo familkii waxaa kala soconaya dhibaatooyin badan dhacaya walaalayaal kama dhigna laba famil kasta kala tagay inay xaraam cuneen taa ha u fahmi waa wax dhici karta laakiin xaaraamtu familka barakaday ka dhacda إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا waxay ahayd khudbadii maanta laga akhriyey oo 24 bisha tobnaad 2025 masaajidka North Melbourne khudba aad wanaagsan bay ahayd waxaana laga sheekeeyey oo ninkan maanta khudba ku qoraa ka sheekeynaya wax la taaban karo hadda ka jira magaalada Melbourne Australia ka jira dhalinyarada Soomaaliyeed qaabka u dhaqmaan ribada iyo makhaayadahan side by side kaas ku dhex jira iyo waxyaalo loo baahan yahay maanta taagan marka masaajida Soomaalida khudbooyinka noocaas looga baahan yahay oo wacyi gelinayo oo xaqiiqda u sheegaya dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin oo ay ka mid ugu horeyso dadka Soomaaliyeed waxay la xanuunsan yihiin qabyaalad waxay la xanuunsan yihiin jifaysi waxay la xanuunsan yihiin musuqmaasuq isdabamaris cadaalad darro waxyaalaha hadda waad ku sheekeynaya ribo la qaato makhaayad ay og yihiin inaysan xalaal ahayn oo doofaarka lagu gadahayo shahaado la fiiriyo waxyaalaha marka la taaban karo dadkeenna haysta ama meesha aan deganna hadda Melbourne dadka Soomaaliyeed haysta in dadka wadamada masaajidka ka khudbeynaya ay dadka ka wacyigeliyaan baa rabaa dadka sidoo kale kilibyada duubi kara wacyigelinta duubi kara in ayagana saasoo kale dadka Soomaaliyeed meesha ka xanuunsan yihiin inay u sheegaan baa rabaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu